kasii aanba qaadno halkii ay noo marisay taariikhdii maxamed siyaad barre waxaana idiin soo jeedin doona aniga oo libax barqiya ah qabsashadii xukunka sanadkii 1969 ayaa dil shirqor ah lagu dilay madaxweynihii dalka cabdirashiid cali sharmaake taas oo buuqiya afgaran waa ka dhex dhalisay madaxdii sare ee wadanka Soomaaliya iyagoo isu afgaran waayay cidda xilka la wareegaysa iyo maamulka haddaba aaskii madaxweyne sharmaake oo ku beegnayd 22 Oktoobar ayaa ciidanka xooga dalka oo uu hogaaminayo Charles Siyaad Barre iyo rag kale ayaa afgambi si lama filaan ku qabsaday wadanka General Salaad Gabayle kaadiye iyo hogaamiyihii ciidanka ammaanka jaamac qorsheel ayaa kamid ahaa ragga safka hore kaga jiray ee suurtageliyay in ay afgambigaasi si guul ah mudane kaadiye wuxuu ahaa oo lagu magacaabi jiray aabaha kacaanka inkasta oo Charles Maxamed Siyaad Barre kala wareegay magacaasi oo isagu noqday aabaha kacaanka iyo hogaamiyaha ugu sareeya ee kacaanka ummadda Soomaaliyeed isla markiiba kacaanku wuxuu magaca wadanka ka dhigay Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Soomaaliya waxay xarig u tahaabeen dhammaan xubnihii ka tirsanaa dawladii hore ee Cabdirashiid Cali Sharmaake waxay madnuuceen xisbiya siyaasadeed in laga sameeyo wadanka kuwaasi oo la tartami kara xisbiga kacaanka waxa intaasi dheereed oo xisbiga kacaanku si dhaqso ah u bedelay xubnihii baarlamaanka iyo maxkamadda sare ee wadanka isla markaana waxay xisbiga kacaanku ku dhawaaqeen in dastuurka wadanku xaniban yahay in waqti ah inta dib u habeyn lagu sameeyo waqtigaas wadanka waxaa lagu maamulayay dastuurku meel gaar ah oo xisbiga kacaanku leeyahay la socda qaybaha dambe hadii Ilaahay raado insha Allah